boqolaal shacab ayaa waxay maanta dibadbax ka sameeyeen qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho. dadweynaha dibadbaxa sameynaya ayaa waxay socod dheer ka soo bilaabeen garoonka Stadio Banaadir ee Stadio Konisa, iyagoo socod ku yimid fagaaraha taalada daljirka Daason ee magaalada Muqdisho. dadka dibadbaxa sameynaya ayaa diraya fariimo aad u culus oo ay ku muujinayaan sida ay kaga soo horjeedaan falka wuxuushnimada ahaa oo ay kooxda Al-Shabaab ka geysatay isgooska Soobe ee magaalada Muqdisho, taas oo ay ku xasuuqeen shacab u tiro badan oo waxba galabsan. qaar ka mid ah dadweynaha ka qayb galaya banaanbaxa ayaa ii suura gashay inaan wax ka weydiiyo dareenkooda. waxaan codsanaynaa iclaaminaynaa dagaal baasan oo ka dhana oo guri loo jafo sida hooyada loo jafaan leena wayna baabiiyeen waxa way waxaan aqliga ma qaadanayo waxaan ku dhimanayna waxay tahay waa dadka hurdaayo war shacabka 3 milyan ee hurdayso ha ka kaceen hurdada ha iska qabteen cadawga ha dagaalameen wallaahi iyo billaahi talaa inaan nala daynayna cagafaan lagu duugaya hadii kala soo baxa dhalinyarada iskaashan wadankeena joogna waxaan baranaynaa wadankeena joogna askar anaga wadankeena joogna wax la tooganay waa anaga hadaynan inaga iskaashan wallahi la cadim inayna gul garan hadaynan anaga isku duubnin wallahi inaysan cidinoo duubnin mid walba walaalkiisa tii lagu horgowraco wuxuu leeyahay wajiga qarsana laakiin intaad gunnimo ku dhimaleed gobnimo ku dhimo iskaashan dhalinyaro aqoonteena codkeena xoogeena aqligeena iyo garaadkeena isku dursan waxaan doonayaa inaan furintoora tago waxaan doonayaa inaan dalkayga difaaco shabaab waqtigooda ugu dhamaaday waxaan leeyahay wasiiro iyo madaxweyne ra'iisul wasaare wadanka waxa ka maqan karo waana ka iskaashano aan qabyaalada ka soo tagno aan qabiilka ka soo tagno ama maamulada nala koobay aan ka soo tagno maanta waa maalin aad u madow aad u murugo badan dadkeennii 300 u go'een ilaahay waxaan ka barinay ilaahay u naxariisto dadkeena masiibad qaran bay nagu habsatay shacabkana waa inay dawladda la shaqeeyaan waa inay soo sheegaan meel kasta ay ku jiraan dadkeena xasuuq inta kala qarax oo meedha waa xasuuq inta soo taagnaa ma arkin tan oo kale weli ma masiibada nagu dhacday waa mid nagu habsatay. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed oo fagaaraha taalada daljirka Daason ee magaalada Muqdisho kula hadlay boqolaal dadweynaha ayaa ugu baaqay inay meel ugu soo wada jeestaan argagixisada ee ka soo horjeeda horumarka iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. waxa uu sidoo kale kula dardaarmay gudoomiyaha gobolka bulshada Soomaaliyeed in social media ay ka bixiyaan sawirada qaldan ee lagu baahinaya baraha bulshada taas oo halis ku ah dhowrista xuquuqda insaanka. waxaan rabaa inaan mahad ballaaran u jeediyo baaqi xala aan jeediyey oo aan dadka Muqdisho degan uga codsaday inay dhiigooda shubaan isku soo baxaan. maanta waxaan tagay dhowr isbitaallada intooda badan dhiiggii waxay wada yiraahdeen tankii noogu talagalay waan helnaa alxamdulillah. isbitaal Madiina oo ugu dambeeyay waxaan ugu tagay dad kumanaan gaarayo oo diyaar u ahaa oo dhalinyar ah inay dhiigga shubaan. taas waxay noo muujinaysaa cadawga inaan diyaar u nahay inaan cadawga dhibaatada intaan la noo geystay aan meel uga soo wada jeesano kulligeen. taas marka waxaan rabaa inaan taskiri lagu ekayn oo meeshaas aan ka sii wadno wixii dhacay ee xanuunka badnaa. waxaan rabaa dardaaranka ugu dambeeya inaan ku gabagabeeyo xanuunka maanta nahayo waxaa ka xanuun badnaanaya markaan aragno qof naga mid ah oo sawiradii meydkii xurmada lahaa wareejinaya social media ku wareejinaya ayaa naga xanuun badan. waxaan qof walba ka codsanayaa meydka islaamnimo soomaalinimo bini'aadamnimo dadnimo xurmuu kaa mudan yahay. meydka ha la xurmeeyo oo qof dadka social media wareejinaya ha ka saaraan. xalay
saakay meesha laga soo saaray dadka soo saaray xanuunka uu ku hayay iyo waalidkooda oo kala garan waayay iyo walaalahooda iyo dadkooda ugu dhawaa iyo asxaabtooda oo kala garan waayay inaad adiga wareejisidna waa damiir xumo waa islaamnimada wax ka baxsan waa bini'aadanimada wax ka baxsan waa damiirnimadana wax ka baxsan sidaas darteed waxaan ugu baaqayaa dadka sawirada meelaha wareejinayo iyo fiidiyowyada inay si degdega uga saaraan dadka ka saari waayana waxaan ka codsanaa ummadda inteeda kale inaad u waanacinsaan aad tidhahdaan ka saara meeshaan intaas ayaa dembi iyo qalbi jab noogu filan kulligeen sidaa darteed walaalayaal waxaan maanta ku soo arkay isbitaal madiino hooyo dhahayso wiilkayga makan social kan videoga internetka la wareejinayo miya mise waa midka inta aan ku soo arkay ilaahay idinku dhaasho wax ka xanuun badan mayaa jira ilaahay aan ka cabsanno hooyadaas iyo inta la midka ee ku dareenka ah inkaarteeda yaasan idinku dhici waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinka codsanayaa sawirada foosha xun iyo fiidiyoyada aadka looga naxaayo oo dadka aad ku argagixinaysaan inaad ka saartaan oo aad meydka xurmaysaan meydka xurmuu mudan yahay walaal xurmuu kaa mudan yahay waqtigan adag ee xanuunka badanna xurmuu kaa mudan yahay inta aan isugu soo baxnay oo qof walbana arkaya inay madaxa ugu duuban tahay mara gaduudan oo ay maanta u tahay maalin mugdi ah mugdinimadaas oo sax ah iyadoo islaamnimo ah iyadoo bini'aadnimo ah ayadoo soomaalinimada wanaagsaneed aan naqaanay ah waxay noqonaysaa marka aan meydka xurmayno dariskeenana aan u qalbi qaboojinno oo aan u soo tacsiinayno oo aan garabkooda istaagno إنا لله وإنا إليه راجعون نور سعيد تاريخ راديو تي في قرن الصومالية